maamulka jaamacadda Banaadir iyo aqoon-yahanadii dhidabada u aasay jaamacadda ayaa kulamo waxa uga socda magaalada Istanbul. jaamacadda Banaadir oo saaxiib la ah qaar ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddankan Turkiga ayaa casuumaad waxa ay ka heshay maamulada sare jaamacadaha qaar ee ku yaal magaalada Istanbul sida uu warbaahinta u xaqiijiyay maamulka sare ee jaamacadda Banaadir Professor Dr. Maxamed Maxamuud Xasan Dr. Bidey. saaki waxaanu kulan la qaadanay madaxda Hillsong University daraad isniinta waxaan la kulnay rectorkii waxaanu ku heshiinay mataqaanaa inaan sameeyno heshiis wax wada qabsi ee labada jaamacadood oo jaamacadda Hillsong University iyo jaamacadda Banaadir University qaasatan qaybta postgraduate-ka oo aan rabno mataqaanaa dhaqaatiirta halkaas wax ka baranayso inaan u soo dirno dalkan Turkiga ay ka qaataan aqoon dhinaca farsamada skillska inay ka qaataan ayaan ku heshiinay waxaan ku heshiinay inaan iska kaashano dhinaca cilmi baarista waxaan rabno mataqaanaa in dadna loo tababaro oo dhinacaas cilmi baarista aqoon u leh iyo inaan ka sameeyno shaqo wadajir oo ah collaboration oo labada jaamacadood wada qabanayaan sidii cilmi baarista loogu helaa aqoon dhisan loogu helaa waxaan kaloo ku heshiinay ardayda kulliyadda health science-ka ee jaamacadda Banaadir inay soo aadaan mataqaanaa dalkan Turkiga ay ku sameeyaan master degree iyo PhD degree labada shahaado inay ku sameeyaan waxa intaas oo dhan aad u muhiim waxay tahay mataqaanaa waxbarashadaas inay ku salaysan tahay luqadda Turkiga inay yaqaanaan ardayda marka waxaan aqbalnay inaan mataqaanaa ardaydeena aan u soo diyaarino sidii ku baran lahaayeen luqadda Turkiga ayagoo mataqaanaa yaqaan halkan ay imaanayaan waayo waxay la xiriirayaan bukaano iyo dad la xiriirayaan si mataqaanaa aqoonta loogu sameeyo intii aad ay noo soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay wax wada qabsiga dhaxmaray jaamacadda Hillsong University-ga iyo Banaadir University oo aan rabno mataqaanaa aan ka kaashano dhinaca aqoontiina kor ugu qaadno dalkeena Soomaaliyeed qaasatan jaamacadda Banaadir iyo wixii kale oo Soomaali oo macnaha ka faa'iideysan kara internet aan u sameeyno hadii aan leedmo waxaan fuli doonaa xarun lagu barto luqadda Turkiga oo aan kala soo xiriirno qolada Yunus Mare liyaado oo luqadda Turkiga u qaabilsan inay siin doonaan aqoon dhinaca luqadda ah iyo macallimiin iyo manhajka lagu barto luqadda waan ku day doonaa mataqaanaa curriculum-keena aan gelin doono si ardayda mustaqbalka u soo dooranayso aqoon macnaha oo ah digriga labaad iyo ka saddexaad inay yaqaanaan luqadda Turkiga si ay uga faa'iideystaan arrintaas aad ugu sameeyaan inta ayaan isku soo afgaranay runtii waxaa goobjoog ka ahaa Professor Cusmaan Difley Professor Guuleed oo arrinta ka qayb qaatay oo runtii aad u soo dhaweeyay barnaamijka isaga waa mahadsantiin intii ay kulamada ay socdeen ayaa waxaa goobta ku sugnaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Banaadir ka soo aflaxay oo Turkiga u jooga aqoon kororsi ku tacalluqa dhanka iyo caafimaadka waxaana sidoo kale arrimahaasi ay ku yimaadeen dadaalka ay bixiyeen maamulka sare ee jaamacadda Banaadir.